بسم الله الرحمن الرحيم halka inaga daawanayso muuqaal baaya damqa TV furiisa wadanka Talyaaniga magaalada Faransa warka jiro runka sheeg maanta waxaan ku soo qaadanayna shir weyne lagu qabtay magaalada Muqdisho ee ka soo qayb galeen xildhibaanada laga doorto gobolka Banaadir xildhibaanada gobolka Banaadir laga doorto ayaa waxa uu hadlayay xildhibaanka lagu magacaabo Cabduqaadir Cusub Cali oo taabtay meelo badan hase ahaatee Cabduqaadir Cusub Cali wuxuu diiday in nin dikreet lagu soo magacaabayo oo ka noqdo magaalada Muqdisho duq magaalo ama se gudoomiyaha gobolka maxaa yeelay wax badan ayaa ka halaysan markii ninka la soo magacaabay awood uma yeesho awoodna uma laha in uu wuxuu rabo uu bedelo mase dhaqaalaha wadankaas laga aruuriyo oo umada dib loogu celiyo hase ahaato xildhibaanka wuxuu ka dhawaajiyay in duqa magaalada Muqdisho amba se gobernatoraha lagu soo magacaabo Twitter ama lagu soo magacaabo Messenger lagu soo magacaabo hase ahaatee taas ayuu yiri wax wanaagsan ma aha waxa loo baahan yahay magaalada Muqdisho waxa ku nool 3 milyan iyo bar ilaa 4 milyan oo ka kooban umada Soomaaliyeed oo dhan oo loo baahan yahay in ay helaan cadaalad iyo xukun ay ayaga isdoorteen cid alle cid la rabo hala doorto ama se xataa dhinaca 4.5 ha loo aado laakiin aynan naqanin nin la soo magacaabo habeen nusleel raacdeeyo taas ayuu ka dhawaajiyay wuxuuna ka hadlay waxyaalo badan taas ayaa waxa ka dhalatay ka hor imaad yaab leh ninka yariiso la leeyahay horta waxaan rabnaa ninka la leeyahay yariiso halkoo ka yimid yow yahay yow mathalka oo meesha ku fadhiya maxuu yahay horta waa mid in la isweydiyo loo baahan yahay waa midaas yariiso mar 24 saac markuu hadlaayo wuxuu ka hadlaa dad baa qabiil ku dhuumaaleysto qabiil buu ka hadlaa war asiga yariiso meesha muxuu ku joogaa yariiso yow yahay yariiso Abdullahi Farmaajo mawla dhashay qayr mawla dhashay yariiso meesha wuxuu ku fadhiyaa qaybta uu ku fadhiyaa hadoo yiraahdo rag baa qabiil ku heesaabay dad baa qabiil ku hadlaayo ninka nin ay shacabka soo doorteen ma aha nin la soo doortay ma aha nin ku yimid rabitaan dad ma aha waa nin ku yimid rabitaan qabiil markii qabiil buu mathala marka waxa loo baahan yahay yariiso horta inuu fahmo wuxuu horta meesha ku fadhiyo waa inuu fahmaa yariiso dhabarka kuma qari karo Umar Farmaajo yariiso dhabarka kuma qari karo ninka leeyahay Xasan Cali Qeyre yariiso wuxuu meesha ku fadhiyo waa qabiil marka ma aha inuu qabiil ka hadlo ma aha inuu qabiil wax ka sheego ma aha in uu dadka u dacwoonayo mase u qaylinayo gobolkan Banaadir inay helaan macnaa nin ay soo doorteen mase golo loo dhiso in uu ka hor yimaado oo meeshas la soo istaago Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre dawlad ka fiican ma jirto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre ayaga ku jooga qabiil marka ma aha inuu 24 saac qabiil ka hadlo qabiilka oo meesha ku fadhiyane waa ogyahay waxa uu yahay hadoona ahayn qabiilka oo meesha ku fadhiya hadoona sheeganin oo na ahayn nimanka noo keeneen hanoo sheegaan hadoo ninka qabiilkan ay una ahayn oo ninkan lagu keenay mariixaanimo oo lagu keenay mase marusada uu yahay oo mase lagu keenay qabiilka lagu keenay marka waa ninkan waaba nin aan aaminsaneen wuxuu meesha ku joogo inay qabiil tahay maba aaminsanaba marka waxa qalad ah oo wax lala yaabo ah ninka la leeyahay Cabduqaadir Cusuble ma tilmaamin yariiso nin la yiraahdo Cabduqaadir Cusuble ma soo magac qaadin yariiso Cabduqaadir Cusuble kama hadlin ninka maanta xukunka haayo ee gobolka Banaadir ee Cabduqaadir Cusuble wuxuu ka hadlay ninka la soo dooranayo ha ahaado ay waaxid oo ka tirsan beeshan Muqdisho degto ha ahaado ninka alla nin la soo magacaabayo ayuu ka hadlay waad ogtihiin horiya waxa loo soo magacaabay Mungab horiya waxa loo soo magacaabay Xuseen Axmed horiya loo soo magacaabay maxal lahay ninka la leeyahay dhagaxtuur hore dadka dhan meesha la keenay tarsan
dadka dhan meesha la keenay waa dad la soo magacaabayay ma ahayn dad la soo doortay dadka meesha la keenayay oo dhan hal meel ay ka dhasheen marka Yariisow yow yahay asiga horta waa ina anaga ogaanaa Yariisow cid uu yahay ma aha inuu qabiil ka hadlo meesha wuxuu ku fadhiyaa qabiil marka qabiil inuu ka hadlo waa ceeb asiga dhahayo maali horaatana wuxuu dhahay Karaan iyo Madiino dadka joogo oo idab darada wada waa noolis gareysiin waa soo xirxirayna hadda ka hor waa tuu dhahay Muuse Suudi waa waqtigiisa soo jiidayna war ninkan yoo ismoodaa ninkan yoo yahay war ninkan waxa laga rabaa dadka oo ku abtirsada inay meel saaraan waxa uu yahay hadduu ayaga ka dhalanin ninkan oo saar yahay hadahana saar waay ninkan naga ma dhalan hadduu ninkan ayaga ka dhashayna waa inay aqli celiyaan ay yiraahdaan warni oo magacaad meesha ku joogtid waa magac dad leeyahay ma aha magacaada meesha ku joogtid aabahana meesha kuma keenin hooyadana kuma keenin meeshan magac ayaa ku timid war waxa la sheegaa markasto nin la leeyahay Jaafar inuu dhulka meel kasta dadka ka xoogooyo kama hadlo dadkiisii wuxuu ugu tagay Madiino guriyuu ka burburiyay guriyuu dadka ka xoogaa isbitaal Madiino gadaashi isbitaalka xooga dalka gadaashiisa wixii ku yaal dhulka waa la iibsanayaa leeyahay waxa soo dhan asiga sameeyay markaas wuxuu ka hadlaa nin xildhibaan ah oo asiga hadal xun dhihin aflagaadeeynin magaciisa soo qaadin oo leeyahay wuxuu u shaqeeyaa argagixiso wuxuu ku sheegaa waxyaalo yaab leh oo hadda hadii maxkamad lagu saaro oo lagu dacweeyo oo meel uu ka aasto oo lahayn ma ilowsan yahay Yariisow ninka uu aflagaadeynay inuu yahay xildhibaan oo xasaanad leeyahay asiga xasaanad ma laha asoo duqa magaalada ay booliiskina u tagaan xir karaan xasaanad ma laha asiga ninkii xasaanad lahaay hadduu ku tilmaamo inuu u shaqeeyo argagixiso ninkii xasaanad lahaay hadduu ku tilmaamo inuu qabiil oo argagixinayo ninkii xasaanad lahaay inuu ku tilmaamo in la soo qabanayo oo la soo xiraayo war asigii ismooday farmaajo dhihi karin kelmadaas xasan cali khayra dhihi karin kelmadaas asiga muxuu ismooday waxa aan idin soo gudbina hadalada meesha ka dhacay oo goos oo yar ah ninkan Yariisow leeyahay adduunka meel kale ugu nool yahay aan anaga ba garanaynin ba war Yariisow meesha hadduu maanta ka tagay bir muxuu rabaa inuu sameeyo Yariisow hadduu meeshan ka tago muxuu rabaa inuu ku hadlo hadduu Ingiriis ka tago war dadkii iyo mujtamaci soo dhaxgala ma se og yahay in dacwayaal ay ka yaalaan hadduu Ingiriis ka tago birito ay dacwo meel u taalo ma og yahay inuu macnaa asiga dambiyaal fara badan oo ku jiro ma og yahay lacaga badan inay ku maqan yihiin ma og yahay ina anaga aan ognahay in Facebookiisa waxa uu soo dhigo ilaa 20 qofood oo lacag ku siiyo oo yiraahdo comment ka bixiya hebel hala daba kaco aniga camal daba soo daba dhig December markaan wax qor waa li aflagaadiya waa li caaya asiga sameeyo budgetka ku baxo asiga inuu isdaafaco inuu magaciisa waxeeyo waa wax la yaabo second awada warkiisa waxaan soo agdhigaa qashinka xamar dhex yaalo ay umada ka qeylinayaan ay umada ka waxeenayaan markaas oo ku leeyahay sideed jidaan soo bani war jidadka oo suubiye magacyada soo sheego jidadka oo suubiye wixii ha soo cadeey jidadka hortiisa la suubiye rag baa sameeyay waxa sameeyay ninka leeyahay Tarzan waxa sameeyay odigii oo asiga Korea hadda oo booska oo ka qaaday dad badan soo wada sameeyeen muxuu sameeyay asiga wuxuu sameeyay kaliya music inuu ka nikiyo wuxuu sameeyay lacagta masaakiinta laga aruuriyo inuu xaflada ku dhigo ma sameeynin jid wuxuu sameeyay habeeraatee male marka Yariisow dadka magacooda oo sito oo family ahaan ku challenge gareysan yahay oo family ahaan oo ku target gareysan yahay ayaa looga baahan yahay Yariisow haddii ay aqal celi karaan aqal celiyaan Yariisow ha ogaado dadka goobaha beledkan degan waxayna rabeen lagu ma qasbi karo dadka beledkan degan dadka banaadir degan dhibaatada waxa ku haya adiga iyo kan la leeyahay maxal dhahay imaamka oo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladka qaarkood
dhibaatada dhan mujtamacaas dhibaatada waxa ku hayo waa ayagana wax ma kaa celi karaan haddii mar geedaan isku qiiqdo yariisow ogow haddii geedaan isku qiiqdo meel aad gashid aad weynaysaa waa kuu sheega hadda waxaa kuu wanaagsan intay goor tahay waxaan inaa iskaga baxdid farmaajo iyo xasan cali khayre dhibaatada ay ku jiraan toodaad deeqdo adiga waxna kama tihid meeshaan oo macnaa waxaad qaban kartid male marka aflagaadada dadka inaa ka dhaaftid ayaa ku wanaagsan xaqu u leeyahay ninka la leeyahay cabdiqaadir cusuble inuu dacwo kaa furo inuu maxkamad ku geeyo waxaad ku sheegtay asiga waa inaad ku caddaysaa annaga nin oo annaga dadkayna iyo dalkayna kasoo horjeedo oo tuug ah ummadaan inuu hogaamiyo xaq uma laha haddii cabdiqaadir cusuble waxa aad sheegaysa ay ku caddaadaan waa sax in wuxuu yahay lagu sheego laakiin cabdiqaadir cusuble looga fadhiyaa inuu maxkamad ku geeyo oo ku dacweeyo aad ku caddaysid cabdiqaadir cusuble waxa ku sheegaysa cabdiqaadir cusuble waa xildhibaan dadka mathaalo waa xildhibaan dadkiisu u hadlo waa aragti xasan cali khayre ma geli kartid aa layiri gaalkacyo haddaa aragtid joog meeshaas gaalkacyada kale ma tegi kartid aa layiri haddaad tegaysa adoo xasan cali khayre waa tegi kartaa laakiin adigoo ra-iisul wasaare ma tegi kartid aa layiri war dowladda ay sheegaysa maxay tahay waxaa la burburinayaa meesha la leeyahay galmudug asaa dowladdii tom iyo shabri uu joogaa asoo dadka isku diraa asaa musiibo lagu sameynayaa puntland agteeda lama tegi karo markay isdooranaysi noolama imaan kara dhehen cid u tegi karta male hadda waxaa loo gurbaan tumanaya meesha laleeyahay maxaa laleeyahay jubbaland loo gurbaan tumanaya war puntland ethiopia miya puntland kenya miya puntland soomaali maaha ninkan la leeyahay wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha la leeyahay muxuu u tegi waayey puntland muxuu u tegi waayey hadduu u wax yahay qalfaan ninkan la leeyahay marka inaan been laysu sheego ma aha in been laysu sheego ma aha waxaan shaqaynayn in la wado ma aha ninka la leeyahay xasan cali khayre codkiisii maanta ugu dambeeyey wuxuu dhahayay 2020 adeenti ugu dambeysana laga cafinaa 2020 la gashay dowladdan hal kelmad oo run ma taqaano hal kelmad oo run ma taqaano jawhar waxaa la buddigay dhagax la dhigay baarlamaan in loo dhiso waxaa loo dhagax dhigay in loo dhiso madaxtooyo waxaa loo dhagax dhigay in loo dhiso jid waxaa loo dhagax dhigay station weyn iyo xab in loo dhiso ilaa hadda wax loo sameeyey ma leh waxaa isku diraayo hiiraan iyo jowhar waxa isku diraayo waa dowladda hadda waataad maqlayseen la leeyahay ninka la leeyahay waare inaa meesha laga dejiyaa la rabaa maalin hore hata wuxuu wacay ra-iisul baarlamaanka oo hirshabelle loo wacay wuu la shiray waaba nin waa dowlad usoo taagan inay waddankan burburiso kaliya arrinta meeshay ku dambayn doontaa arki doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh